suuqii waalidkayga loo geystay waannu cafinay laakiin maanaan iloobin mar kaste waannu xusi doonnaa sida caadiga ah. qof kastoo u baaqani gaadho meel kastuu joogo dalka iyo dibaddiisaba waxaan rajaynayaa inuu ka qayb qaato. waa dhallinyaro iskood istiray isla markaasina isa soo abaabulay waxay baaq u direen guud ahaanba shacabka gobolka Awdal iyagoo ku wargeliyay inay ka soo qayb galaan 4 Febraayo oo ku beegan maalinta Sabtida 2023 oo lagu qabanayo digta magaalada Boorama isla markaasina loo ducaynayo oo tacsi tiiraanyada la wadaagayo guud ahaanba ehelkii naga geeriyooday ee ay xasuuqeen SNM 1991 dhallinyaradu waxay cid kasta ku bogaadinayaan inay maalintaasi weyneeyaan isla markaasina ka soo qayb galaan. baaqooga ayaa sidan u dhignaa: inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. annagoo ah dhallinyaradii gobolka Awdal dhammaan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada bulshada gobolka Awdal meel kasta ay joogto dal iyo dibad, kuwa Itoobiya jooga, kuwa Jabuuti jooga iyo kuwa dibadda jooga inay ka qayb qaataan oo ay xusaan maalinta shuhadada oo ku beegan 4 Febraayo. sidoo kale waxaan aad ugu baaqayaa annagoo dhalinyarta ah inay gobolka Awdal inay iskugu soo baxaan dadka shaqeeya, macallimiinta, aqoon-yahanka, ardayda, hooyooyinka iyo dhammaan dhalinyartuba 4 Febraayo oo ku beegan maalin Sabtiya dhigtii Boorama halkay ka dhacday inaan ugu ducayno shuhadadeennii inay bulshada halkaas kugu timaado amba jaamacadda adag horteeda 9 subaxnimo haddii ay raalli ka noqdo inay iskugu yimaadaan halkaa oo shuhadadeennii ugu ducayno haddii ay raalli ka noqdo 4 Febraayo. qof kastoo u baaqani gaadho meel kastuu joogo dalka iyo dibaddiisaba waxaan rajaynayaa inuu ka qayb qaato ama uu faataxada u maro ama uu u duceeyo maalinta ama uu baaqa ka soo diro meel kastuu joogo ama gurigiisa iyo dal iyo dibadba. oo ah Cabdiqani Maxamed Ibrahim Caynaashe kana mid ah ehelada shuhadadii waalidkii ay dhaleen dhacdadii 4 Febraayo ku shahiiday magaalada Boorama. waxaan halkan baaqan uga dirayaa inta aniga ila mid ah ee martay marxaladda agoonnimo in damiirkoodu uu siiyo inay maanta oo kale maalintaasi ay ku beegan tahay ee la asteeyey in ay ka soo qayb qaataan baaqaasi isagaa ayna soo ajiibaan. qof kasta oo reer Awdalna waxaan baaq halkan uga dirayaa in uu ka faa'iideysto fursadda tan uu halkiisa meel kastuu joogo magaciisa iyo masabkiisa isagoo aad u kor ugu qaadaya inay xusaan maalinta tan. waxaanu mar kasta diyaar u nahay sidii caadada ahayd inaannu mar walba u ducayno waalidkaygii waa nagu waajibiyey inaynu u ducayno qofkeenna meytida. waxaanu leenahay allahuma arxam mowtaana baanu leenahay. suuqii waalidkayga loo geystay waannu cafinay laakiin maanaan iloobin mar kaste waannu xusi doonnaa sida caadiga ah. qof kastana waalidkiisa waa xusaa, meel kasta waa kaga xusaa, cid ka hor istaagi kartaana ma jirto. sida aan anigu qabo waxaa weeye sida qof walba aabbihii inuu ugu duceeyo iyo ummadda muslimiintana meel walba ay joogaan inay isugu duceeyaan ilaahay noogu waajibiyey. adigu haddii aad joogto Boorama ma kuu qorshaysan tahay inaad ka soo qayb gasho 4 Febraayo ee ku beegan maalinta Sabtida? suxufi Cishqi, magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.